tartanka koobka bisha Ramadaan ee barakeysan ee ka socda garoonka Olympiga ee degmada Xudun ee gobolka Sool waxaa kooxaha ka qayb galaya koobkaasi agab isboorti guddoonsiiyay mayor ku-xigeenka degmada Xudun Cabdinaasir Cabdiqaadir Sheekh Cabdi Guure sidoo kale mayor ku-xigeenka ayaa bogaadiyay sida habsamada loo socdo tartankaasi kooxaha ka qayb galaya kulamada waaweyn ee koobkaasi ayaa u mahadceliyay dowladda hoose. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Galabta waxaanu joognaa garoonkii uu ka socday Ramadaan Kaabku. Waxaa noo yimi galabta qolo ka socota dowladda hoose oo hogaaminayo mayor ku-xigeenku oo siday dhar ka lagu ciyaaray isboortiga iyo agab kale oo ma garanaysaa agabka hadda inoo muuqda oo ay ku caawiyeen dhalinyarada Ramadaan Kaabka ciyaaraysa. Waa ku mahadsan yihiin dowladda hoose dadaalkooda inta ay ka sii laban laabaan baan rajaynaynaa oo ma garanaysaa deebiis leeyahay koobabda inta ka waaweyn ayaa laga sugayaa. Marka insha Allah waxaan aad ugu mahadcelinaynaa hawsha ay qabteen dowladda hoose. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillahirrahmaanirrahiim. maanta oo ay tahay bisha Ramadaan 12 waxaan u mahadcelinaynaa gudoomiyaha mayor ku-xigeenka degmada Xudun oo xawiyay agab isboorti ku wareejiyay dhalinyarta aad iyo aad buu mahadsan yahay. insha Allah inta ay ka badan boo ka sugaynaa mayorka aad buu mahadsan yahay. Bismillahirrahmaanirrahiim. sida kabtankii ugu horeeyay sheegay maanta waxaan joognaa garoonka Ramadaan Kaabka socday waxaana la jooga mayor qolo ka socota dowladda hoose oo hogaaminayo mayor ku-xigeenka degmadu qoladaas oo sidii agab isboorti oo koobka ay ku taageertay waxaan filayaa waa wax qabad bilow inta ay ka badan boo ka rajaynaa. Asalaamu calaykum. Bismillahirrahmaanirrahiim. Ilaahay baa mahad iskale. waxaan halkan ka salaamayaa dhalinyarada isboortiga halkan fadhida dhammaan intay tiro leeyihiin. ilaahay baa mahad iskale. waxaan ku dhiirigelinaynaa aan kala qayb qaadanaynaa baahiyaha isboortiga sida agabka lagu ciyaarayo oo kale marka uu koob yimaado oo inaanu kala qayb qaadano si aan u dhiirigelino dhalinyarada. marka intaa kaliya ku koobnaamayno insha Allah waxaan rajaynaynaa waxyaalo ka fara badan inaanu kala qayb qaadano. bulshooyinka reer Xudun waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada la dhiirigeliyo si ay taariibta iyo balwadda ee dhinac uga maraan ee horumarka u soo jeestaan in lagu garab galo isboortiga iyo ciyaaraha iyo wixii ka dhiman agabka lagu dhiirigeliyo. waan ka codsanayaa aad u mahadsan yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan oo ah garoonka Olympic ee degmada Xudun waxaa ka socda koobka bisha Ramadaan ee barakeysan. halkan waxaa ciyaar ku dhaxmartay labada kooxood ee kala ah dowladda hoose iyo F1 waxaana ku soo dhamaatay Bareejo. waani waa Maxamed Maxamed Cawil Kawte degmada Xudun ee gobolka Sool.